السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديل kusoo dhawaada wararka ciyaaraha bulsha sport waa anigu Xasan Cumar Xuseen qodobadani hayana waxa kamid ah Arsenal ayaa xaqiijisay Saliba inuu ku biiray kooxda Marseille Liverpool iyo Man United ayaa ku biiray dalabka xidiga Anwar Man United ayaa isha ku haysa labada daafac Farena iyo Tribari Roma ayaa ku dhow inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Shaka tababara Aston Villa ayaa diyaar u ah inuu fursad cusub siiyo Wesley intaas waxaan qodobadii wararka haadan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Arsenal ayaa xaqiijinaysa in Saliba uu ku biiray Marseille qodobkaasi waxa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Arsenal ayaa xaqiijisay inay daafaceeda William Saliba oo heshiis amaah ah xilli ciyaareedka ugu biiray kooxda Marseille. Saliba ayaa xilligii ciyaareedkii hore amaah ugu ciyaaray 22 kulan kooxda Nice. Agaasimaha farsamada Edua ayaa yiri aniga iyo William waxaan go'aansanay inaan ku ficnaan doono horumarkiisa si socda inuu xilli ciyaareedka kale amaah ku qaato. William wuxuu nagu soo biiray isagoo 18 jir ah walina waa 20 jir oo kaliya sidaa daraadeed wali waa uu horumaraya. William waa ciyaaryahan leh awood dabiici oo xoogan xilli ciyaareedka soo socda wuxuu awood u leeyahay inuu si dhab ah waxtar ugu yeesho Marseille oo ah koox fiican inaad xilli ciyaareedka kale ka ciyaarto La Liga 1 aad ay muhiim ugu noqon doontaa horumarkiisa dabcan waxaan xiriir dhow la yeelan doonaa William inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkan waxaan u rajaynayaa wanaaga Faransa ee Marseille Liverpool iyo Man United ayaa ku biiray dalabka xidiga Anwar qodobkaasi waxa eegaya Xuseen Cumar Xuseen Liverpool iyo Manchester United ayaa ku soo biiray dalabka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Lyon ee Hussein Anwar. Spain ayaa sheegay in Liverpool iyo United ay ku biireen Tottenham iyo Arsenal si ay u diiwaan galiyaan xiisaha ay u qabaan 23 jirkan khadka dhexe. Liverpool ayaa la socota horumarka Anwar ee Lyon in muddo waxaana laga yaabaa inay isku daydo inay dalabka ka gudbiso xagaagan. Si kastaba ha noqotee waxay intaasi ku dareen in ay xiriirka Liverpool iyo Lyon uusan sidii hore ahaan doonin haatan iyo markii uu fashilmay Nabil Fakir oo lagu keeni lahaa Anfield. Lyon ayaa diyaar u ah inay ku iibiso Anwar lacag 25 milyan. Man United ayaa isha ku haysa labada daafac Farena iyo Tribari qodobkaasi waxa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Manchester United ayaa riixaysa inay la soo saxiixato labada daafac ee La Liga Rafael Varane iyo Kieran Trippier. The Sun ayaa sheegaysa in labada heshiis ay dhamaantooda dhamaadeen laakiin lagu sameeyay ogeysiisyo la filayo dhamaadka usbuuca soo socda. United ayaa u muuqata inay 50 milyan oo gani kula wareegayso Real Madrid Varane oo 28 jir ah inkastoo daafaca dhexe ee Faransiiska uu kaliya hal sano ugu harsan yahay qandaraaskiisa Bernabeu. Daafaca dambeedka midig ee reer England Trippier oo jir ah ayaa doonaya inuu dhaqaaqiisa Old Trafford kadib 2 sano oo guulo ah uu la joogay Atlantic Madrid. Heshiiska ku kacaya 18 milyan oo gani ayaa ku jira heerarkii ugu dambeeyay. Labada heshiis ayaa qarash gareyn doonta United in ka badan 140 milyan xagaagani iyadoo imaatinka garabka Jadon Sancho uu kaga yimid Borussia Dortmund 73 milyan. Roma ayaa ku dhow inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Shaka qodobkaasi waxa eegay Xuseen Cumar ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Shaka ayaa ku dhow inuu 15 milyan oo gani ugu biiro Roma ayaa ku waramaysa in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Switzerland si aad ah u doonayo inuu ka tago Gunners si uu la xiriiro Jose Mourinho ayaa sida muuqata doonaya Shaka oo 28 jirkan ay wada shaqayn la yeesho guuleystaha reer Yurub ee Euro 2020 wareejinta Shaka ee Roma ayaa soo afjari doona in 5 sano oo buuq badan oo ku sugnaa Emirates. tababara Aston Villa ayaa diyaar u ah inuu fursad cusub siiyo Wesley qodobkaasi waxa inoo ayaa Cabdirasaaq Cabdi tababaraha Aston Villa Smith ayaa diyaar u ah inuu Wesley siiyo fursad cusub xilli ciyaareedkan. Wargeysyada The Express iyo Star ayaa sheegay in Wesley uu ku soo laabtay Bournemouth Health toddobaadkan si uu u bilaabo u diyaar garowga ololaha muhiimka ah kadib markii uu ka soo laabtay dhaawac ka soo gaaray jilibka. 24 jirkan ayaa 3 kulan bedel ku soo galay isbuucyadii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkii hore kadib in ka badan 15 bilood uu garoomada ka maqnaa. Villa ayaa siin doonta Wesley fursad uu ku muujiyo inuu dib ugu soo ceshan karo foomkiisa taasoo uu ku qancisay inay 20 milyan oo gani ka bixiyeen Club Bridge adeegiisa kaliya 2 sano ka hor. intaasi waxay ahayn wararkii ciyaaraha bulsha sports waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.